Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç hürriyetinden, inanç özgürlüğünden anlamayan madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta weerar dhanka afka ah ku qaaday dhigiisa Faransiiska Macron taasi oo ku saabsan siyaasadaha Macron ee ku wajahan muslimiinta. Mr. Erdogan ayaa sheegay in Mr. Macron uu u baahan yahay baaritaan dhanka maskaxda ah. Macron iyo Erdogan ayaa ku murunsan xuquuqda biyaha badda Mediterranean-ka, Liibiya, Suuriya iyo murunkooda ugu dambeeyay oo ku saabsan dagaalka u dhaxeeya dalalka Azerbaijan iyo Armenia. maxaad oran lahayd madaxweyne dal oo malaayiin diin haysata ula dhaqmaya sidan? Marka hore baaritaan dhanka maskaxda ah isku soo samee. waxaa sidaas magaalada Kayseri ka yiri Mr. Erdogan oo khudbad laga sii daayay telefishinka wadankaas. soo jeedinta Macron ee ahayd in dalkiisa laga difaaco muslimiinta xag jirka ah ayaa ka careysiisay dowladda Turkiga. maxaa shakhsiga lagu magacaabo Macron daba dhigay islaamka iyo muslimiinta, ayuu isweydiiyey madaxweyne Erdogan. Macron wuxuu u baahan yahay daaweyn dhanka maskaxda ah, ayuu intaas ku daray. madaxweyne Erdogan ayaa dhanka kale saadaaliyey in Macron uusan wax badan ka keeni doonin doorashada madaxtinimada Faransiiska ee lagu wado in ay qabsoonto sanadka 2022. doorasho ayaa ka dhici doonta Faransiiska, waan arki doonaa waxaad ka soo hoyso. uma malaynayo in uu horay u sii socon doono sababtoo ah waxba umuusan qaban Faransiiska, ayuu intaas ku daray. waxaad mar walba farta ku fiiqdaa Erdogan, tani wax faa'iido ah kuma keenayso, ayuu yiri mar kale madaxweyne Erdogan. dalka Turkiga ayaa aqlabiyada dadka ku nool waxay yihiin muslimiin, isla markaana Turkiga waxa uu xubin ka yahay gaashaanbuurta NATO. Turkiga ayaa dadaal u galay in uu ka mid noqdo dalalka midowga Yurub ku guuldareystay. hadalhayn xoogan ayaa ka dhalatay khudbad uu madaxweynaha Faransiiska uu kaga hadlay arrimaha islaamka, taasi oo uu shaaca ka qaaday qorshe uu ku doonayo in uu ku meel mariyo sharci adag oo uu sheegay in uu xakameynayo waxa uu ugu yeeray muslimiinta gooni u goosadka ah si uu u difaaco mabaadi'da cilmaaniga. dhanka kale Faransiiska ayaa wadatashi ugu yeeray safiirkiisa u fadhiya Turkiga kadib markii uu madaxweyne Erdogan hadallo xanaf leh ku weeraray dhigiisa Emmanuel Macron. Erdogan oo la hadlayay xubno ka tirsan xisbigiisa AK Party ayaa sheegay in Macron uu u baahan yahay baaritaan dhanka maskaxda ah kadib markii uu hogaamiyaha Faransiiska sheegay in uu gacan bir ah ku qabanayo islaamiyiinta xag jirka ah ee wadankiisa. madaxweyne Macron oo ka fal celinayay dilka nin macallin taariikhda ahaa oo qoorta laga jaray kadib markii uu soo bandhigay sawir uu ku tilmaamay Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, ayaa wacad ku maray in dalkiisa uusan joojin doonin sawirada noocaasi ah. mas-uul u hadlay Faransiiska ayaa sheegay in Erdogan uu u dhaqmay si aan la aqbali karin oo xushmad darro ah. labada hogaamiye ee dalalkoodu ay ka wada tirsan yihiin gaashaanbuurta NATO ayaa muddooyinkii dambe isku hayay arrimo ay ka mid yihiin colaadaha Syria, Liibiya iyo gobolka lagu muransan yahay ee Karabakh, balse hadalka Erdogan ayaa ahaa mid si toos ah uu ugu weeraray shakhsiyadda Macron. madaxweyne Erdogan ayaa ka carooday in qaar ka mid ah dhismayaasha dowladaha hoose ee Faransiiska lagu soo bandhigay sawir gacmeedkii macallinkii loo dilay xilli xus loo sameynayay Arbacadii. waxa uu sidoo kale dhaliilay hadal uu Macron jeediyey ka hor dilkaasi oo ahaa in diinta Islaamka ay dhibaato xoogan wajahayso caalamka oo dhan. muslimiinta Faransa ayaa ah kuwa ugu badan Yurub, isla markaasna gaaraya 10% tirada shacabka dalkaas. qaar ka mid ah muslimiintaas ayaa ku eedeeyay Macron in uu geeska gelinayo diintooda, hadalladiisana ay qiil siin karaan kuwa islaamka nacab. xiisada labada wadan ayaa meel adag gaartay, waxaana Turkiga uu taageeray in la qaadaco alaabaha Faransiiska lagu sameeyo, arrintaas oo ka bilaabatay qaybo ka mid ah Bariga Dhexe.